Waxaan uga naxay sidii qof aan garanayo oo geeriyooday. Muddo sannad iyo badh ah waxa ay ku noolayd dayrka guriga iyo daaradiisa. Maalintii ciiddii Shawaal ayay dhashay 4 carruur ah. Xabad ayaa ka dhimatay, waxaanay ahayd hooyo haysata 3 carruur ah, oo ay sida hooyo dhammaanteed lagu yaqaano u koriso una nuujiso oo dhaxanta ay boga ka geliso kana difaacdo cid kasta oo damacda in ay waxyeelayso ubadkeeda. Mar kasta oo aan arko iyada oo ay u jaqayaan si cajiib ah oo u jiifta iyo iyada oo ciyaarsiinaysa, waxa ii geli jiray naxariis iyo damqasho, waana sababta ay iiga dhigatay saaxiibkeeda koowaad oo marka ay codkayga maqasho waxay judhaaba soo geli jirtay halkaan joogo. Maanta oo Jimce ahayd waxa dhacay dhaqan aanan ku aqoonin carruurtaasi kadib markii ay guriga iyo madbaqa ku soo yoomeen. Waan la yaabay oo waxoogaa hilib ah ayaan u tuurtuuray. Markaan guriga ka soo baxay waxoogaa yar waxaan laamida ku arkay meydka bisad xalay uu jiidhay gaadhi baasi. Waxaan dareemay carruurtii yaryarayd ee maanta dhaqanka cusub aan ku arkay in ay hooyadood tahay. Waxaan telefoon kula hadlay oo weydiiyey gurigii goorta ugu dambaysay, waxaanay ii sheegeen in aan ilaa xalay la arag. Markaa waa iyadii meydkaasi. Naxdin weynaa ma yeedhaan, weliba yar yar oo aan hadlaynin oo kugu ag nool, weliba carruur ah. Walaahi waxaan uga naxay sidii qof aan garanayo oo geeriyooday. Waxaa qoray weriye Abiib Iimaan.